kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna bandhigga VOA-da ee toddobaadkan maamulka Puntland ayaa ku jira dagaal adag oo ka dhana kooxda ah Daacish oo ka socda buuraha silsiladaha ah ee Calmiskaad ee gobolka Bari ee Puntland tan iyo bishii December dabayaaqadeedii oo dagaalkaas uu soo bilowday waxaa qayb ka noqday duqeymaha diyaaradaha Mareykanku ay ka geysteen Soomaaliya dhowaantan oo madaxweyne Donald Trump uu amray in lagu bartilmaameedsado kooxda saraakiil kamida si weyn waxaa dagaalkaasi dhinaca kale isha ugu haya daneeyayaasha beesha caalamka ee arrimaha Soomaaliya sidaasoy tahay dhinacyada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Puntland oo khilaaf sal adag la uu ka dhaxeeyay muddooyinkan dambe ayaa sabab waxay u noqotay in kaalintii dowladda ee ku lahayd la dagaalanka argagixisada aysan ka muuqanin dagaalkaasi ka socda Puntland ee Daacish ka dhana haddaba aragtiyada kala gedisan ee dhinacyada ayaan barnaamijka ku eegi doonaa oo waxaa marti noogu ah wasiiro heer federaal iyo kuwa maamul goboleedkaasi ah iyo sidoo kaleeto falanqeeyayaal eegaya dagaalka Daacish ee dowladda Puntland ay wado gulufka dagaale ka dhanka ah kooxda Daacish ayaa dagaalka intiisa badan waxa uu soo bilowday bartamihii bishii ina dhaaftay ee January toddobaadkan kii ka horreeyay unbay ahayd markii khasaare xoogan laga soo sheegay markii kooxda Daacish ay weerar ku soo qaaday saldhigyo ciidamada Puntland ay ku leeyihiin dhinaca gobolka Bari halkaasi oo qaraxyo ay ka geysteen sababayna khasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jira dagaalku weli waa uu socdaa sida maamulka Puntland ay sheegeen haddaba dagaalku halkee ayuu gaarsiisan yahay heerkiisuna haatan waa mid noocee ah waa kan wasiirka warfaafinta maamulka Puntland Maxamuud Ceydi Dirir oo aan weydiiyey wararkii ugu dambeeyay ee dagaalkaasi isbuuca waxaa bilaabmay dagaalka kafool oo buuraha ka bilaabmay oo ku socda dhinacaas iyo Balididin waa laga sii gudbay saddexdii isbuuc ugu dambeysay agaarka Balididin ilaa iyo Tuurmasaare meesha la yiraahdo ayuu dagaalkii ugu dambeeyay 12 maalmood hore ka dhacay shalay dagaalku ciidamada hore u sii socdeen habeennimadii waa la socotaa inay soo weerareen maartay baabuur qarxiya ah ku soo weerareen oo ay ka soo dhigeen bullet proof baabuur aan xabado karin oo ay birta culus ee arsaastu ka dusin ama aan maartay ka dusin gantaalaha fudud sida waxa loo yaqaan RPG oo kale aan ka dusi karin ay ku soo weerareen sida ay u barteen waxa weeye nimankaasi xero ciidan ama meel ciidan joogo inay baabuurta qarxa kaga naxsadaan hadday kaga naxsadaan adeedna uu ciidan infantry ah oo qaraxyo wata oo hub fudud ku dagaalamaya ilaa iyo dhashiikaha iyo ilaa BKM-ka ay galaan xerada wax la ay laayaan iyo waxay qabsadaan ay ka dhigaan ay guul ay maaragtay soo qorshaysteen bay ku soo talagalaan inay halka ka dhacdo nasiib wanaag ilaahay baa mahadle waxa mahadda kale iskale ciidamada oo soo jeeday oo u diyaar ahaa muxuu ahaaye markii qaraxyadaas intaanay baabuurtuba qarxin sanqadhooda markii laga war helay ciidamadu inay rasaasta huwiyeen nimankii baabuurta riixayay oo injiinka baabuurka soo dansaday inay maartay laayeen khilaafka u dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedka Puntland ayaa keenay inay si door mug weyn la ka ciyaarin dowladda dhexe ee Soomaaliya dagaalkaasi ka socda Puntland ee Daacish ka dhana wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya Cali Xoosh ayaa weydiiyay waxa ay kala socdaan dagaalka ka socda buuraha Calmiskaad ee Puntland ee gobolka Bari sahara waa mahadsan tahay buuraha Calmiskaad kooxaha argagixisada ayaa muddo 12 sano ku sugnaa halkaas oo ay u soo hayaameen runtiina ay rabeen inay ka dhigtaan gabbaad iyagoo dunida meelo kala duwan ka yimid waa dagaal lagu soo qaaday dowladnimada iyo qarannimada Soomaaliya ayna waajib tahay in naf iyo maalba loo huro waxaana ku bogaadinayaa dowladda Puntland ciidamada iyo shacabkaba sida geesinimada leh ay u jabiyeen argagixisada Daacish ee gabbaadka soo biday ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan Puntland saadka saanada iyo xooga dagaalka Daacish ee ka dhanka ah halkaasi waxa wada Puntland oo shacabka iyo maamulkuba ay si wada jiro ugu jiraan waxaana gulufkaasi jirto in Puntland aysan dowladda dhexe ee Soomaaliya ka muuqanin waqtigan su'aasha taagan ee ah doorka dowladda iyo dagaalka Daacish ayaan weydiiyay waxay uga muuqan laayihiin wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cali Xoosh waxa uu ku jawaabay sara waa maasan tahay runtii markii maslaxadda Soomaaliyeed iyo dowlad dhiskan iyo duruufaha Soomaali soo maday iyo dayaceeda meel kasta yaala marka la arko marka khawaariijtan soo hayaantay ama gudaha ka dhalatay oo dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed iyagoo gacmo kale oo shisheeye dana ay ku jiraan ummadahan muxuu ahaa inaysan dan ahayn khilaafaad siyaasadeed oo wax lagu doono inaysan ahayn baa muuqata qof kasta u muuqata qofkii wax kala fogeeyo maanta oo khilaafaad
sii huriya waa wax muxuu ahaa taariikh iyo raad ku noqonaya masaalixda soomaaliyana ma ahan dagaalkan hadda socdana in siyaasad loo adeegsado ama dowlad federaala ama dowlad puntland midnaba ma ahan dagaalna qof sidiisu qof goonihii guul kama doono dagaal waa lagu wada guulaystaa muxuu ahaa waana dan caama waxa ku wada dhimanayaana waa dad dhalinyaro ah oo soomaaliyeed oo magac soomaaliyeed leh oo aayaha soomaaliyeed iyo dhulka soomaaliyeed magacuu raba hadda ha lagu sii kala sheegay u dhimanaya taariikhduna qorayso muddaba awoodda al-shabaab waa ay muuqatay oo waxa ay ka dagaalamayeen koonfurta soomaaliya inteeda badan laakiinse daacish oo inta badan bariga dhexe laga soo ciribtiray ayaa waayadan dambe waxa ay isku aruursanayeen haddana si joogto ah ee weeraro uga soo qaadayeen buuraha dhinaca bari ee Puntland maanta daacish waxaa lasoo bandhigayaa dagaalyahano ajaanib ah oo ayaga ka barbar dagaalamaya oo maamulka Puntland dagaalka inta ay kula jirta gaar ahaan toddobaadyadii ugu dambeysay lasoo bandhigay haddaba dowladda dhexe ee Soomaaliya ma ogtahay tirada iyo awoodda daacish ee Soomaaliya ka dagaalamaysa maadaama urur lala xiriirinayo argagixisada uu yahay daacish waa kan mar kale wasiir Cali Xoosh runtii waa arrin muxuu ahaa xogo sirdoon tiradooda tayadooda iyo xiriiradooda intaba muxuu ahaa baaridu ku socoto waxna laga hayo oo ilaa xad wax laga og yahay anigu ma rabo hadda inaan afka ku ballaariyo tiro sheego laakiin xoga waa laga hayaa dhinac kastaba daacish waxaa la rumaysan yahay in dunida inteeda kaleeto ay ka yaraatay suurtagalna ay tahay in Soomaaliya laga ciribtiri karo haddii loo midoobo ambaasador Axmed Ciise Cawud waa wasiirkii hore arrimaha dibadda ee Soomaaliya waxa uuna si gaar ah uga soo jeedaa deegaanada Puntland waxa aan weydiiyay waxa uu kala socdo dagaalka Puntland ee daacish ka dhan ah waxa uuna ku jawaabay waxaan kuwa dhaawacmayna u rajaynayaa ilaahay inuu caafimaad siiyo ciidamadan waxaan u rajaynaynaa inay ku guulaystaan argagixisada ay soo daba jaraan buurahaas ku jira intaasi waa tacsiyeynta iyo bogaadinta ciidamada iyo inaan u rajaynayno guul zahra sidaynu kulligaan ka warhayno ciidamada Puntland waxay intii hadda dhowr asbuuca la dagaalamayaan argagixisada daacish buurahaas bariga Puntland ku jira guulo badanna way ka soo hoyeen meelo badanna way ka qabsadeen marka intaas ayaan kala socdaa waxaan kaloo bogaadin mudan shacabka reer Puntland iyaguna meelay joogaanba taageeraya ciidamadaas oo gurmad u sameynaya khilaafka siyaasadeed u dhaxeeya maamulka Puntland iyo dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu ragaad galiyay habsami u socodkii howlaha dowladda dhexe ee federaalka iyo maamul goboleedyada haba ugu horeeyaan dagaalka ka dhanka ah kooxaha argagixisada oo daacish haatan ay ugu weyn tahay wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka Soomaaliya Cali Xoosh ayaan weydiiyay waxa ay xal ugu waayeen gaar ahaan asaga oo deegaankaasi ka soo jeeda khilaafka dowladda dhexe iyo maamulka Puntland waxa uuna yiri khilaaf macno yar oo laga baaqsan karay weeye muxuu ahaa aan masaalixda Soomaaliya qayb ka ahayn mid guud iyo mid gaaraba dowladda dhexe waxaa ka go'an laga dagaalanka kooxaha khawaariijta daacish iyo al-shabaab waxaa socda dadaalo lagu xoojinayo iskaashiga dowladda dhexe iyo Puntland si loo ciribtiro halista khataraha argagixisada daacish waxaana diyaar ah wax kasta oo baahiya oo Puntland dagaalkeeda lagu xoojin karo Puntland saanad hadday noqoto dagaal ciidan hadday noqoto iyo saadba ayada ayaa isku tashatay oo maamulkii dowladii dhexe federaalka Soomaaliya waxba kuma aysan darsanin marka taasina siyaasiyiin fara badan oo deegaanka ka soo jeeda waxay ku eedeynayaan dowladda in ay doorkii laga rabay ee xagga federaalka aysan ka ciyaarin la dagaalanka daacish maxaad ugu jawaabaysaan eedda la xiriirta inaad dhagaha ka qabsateen dagaalkaasi khilaafka jira awgeed horta sahroy dabeecad iyo habdhaqan uma lahaan jirin cay iyo aflagaado iyo war aan meel fadhiyin Puntland waxay ahayd gobol Soomaaliyeed baa loo dhisay runtiina way ku shaqayn jireen waana ku shaqaysaayo dee waa karaamadeeda iyo sharafteeda waa la yaqaanaa waxyaabahan hadda soo kororka oo muxuu ahaa siyaasiyiintu inay inay khilaaf dhex galo waa wax seenbari dhacda laakiin dadka muxuu ahaa YouTuberiska iyo dadka kale oo aan runtii ahayn dad muxuu ahaa qaangaar ah oo aragtida wanaagsan iyo Puntland dabeecadaheeda iyo asalkeeda iyo farc ahaan habka ay u dhaqanto dadka muxuu ahaa dad badan oo ku caytanaya waa jiraan oo akhlaaqdaas aysan ahayn mid muxuu ahaa guul laga gaari karo laakiin
dhinacan ama saanad ha noqoto ama daawo ha noqoto ama haddii ilaahay dankeeda leeyahay daryeelka caafimaadka askarta ha noqotee puntland dowladda federaalka awaamiir baa laga bixiyey diyaar weeye haddeer bay taagan tahay ciddii lagala xiriiri lahaa iyo ciddii qaadan lahayd baanu hadda iyo sidaanu ugu geyn lahayd baanu baadigoobaynaa waxaanu la-nahay madaxda kale oo madaxweynaha xiriir la sameeyeen iyo ra-iisul wasaaruhuba madaxweynaha markana aan siiyo wasiirka warfaafinta ee maamulka puntland maxamuud caydiid dirir horta kaalmada laga filayey dowladda dhexe laga heli karayay waxay ahayd waad og tahay oo dowladda soomaaliyeed mas-uul dalka iyadaa ka ah difaaca iyadaa mas-uul ka ah waxaan ognahay dowladda turkiga dowladda qatar imaaraadka talyaaniga maraykanka ingiriiska turkiga talyaaniga masar dad badan dowlado badan baa hub maaragtay keenay dalka soomaaliyeed noocyo kala duwan ilaa baabuurta qafinana xabaddu karin oo maaragtay loo yaqaano armoured maaragtay vehicleska rasaas baa la keenaa loogu talagalay argixisa in lagula dagaalamo waxay ahayd meeshii dagaal ka jiro argixisa lagula dagaalamayo inay geyso inay siyaasad ku xidha ma ahayn siyaasadda dee dowladiska soomaaliyeed waa lagu kala aragti duwan yahay oo saddex aragtiyood baa taalla aragtida federalismka ah oo dastuurka kumeel gaarka uu qabay oo puntland maaragtay ay qarabto ayaa jira aragtida centralizerka ah oo dowladda dhexe keligeed inay jirto oo awoodda xamar kusoo urto dowladda dhexe iyo siyaasiyiinta xamar hoggaanka qabanayay baa u badnaa aragtida kala tagga ahto somaliland qabta ayaa jirta marka intaba isku soo xooriyo dowladda dhexe mas-uuliyad gaaraa saarayd waxay ahayd meeshii ay dhiila ka jirto rasaasta hubka inay geyn karto aanay hanti iyadu leedahay oo gaar u leedahay inaanay ahayn nasiib darro lagama hayo ilaa iyo hadda si loo yareeyo khataraha koboc iyo adkeysiga daacish iyo al-shabaabta soomaaliya inteeda ka dagaalamaysaba haddii aysan jirin wada shaqayn dhex marta hay-adaha dowladda ee kuwa heerka federaal iyo kuwa maamul goboleedyada sidee ayay suurtagal ku noqon kartaa in lagu guulaysto dagaalkaasi waa kan mar kale wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka ee soomaaliya cali xoosh oo ka jawaabaya adiga aan ku weydiiya deegaanka ayaad ka soo jeedaa shakhsiyan maxaad u dhexdhexaadin weysay labada dhinac oo door muhiima uga ciyaari weysay ama xataa madaxweynaha maamulka puntland ee haatan aad eedeynaysa laftiisa aad si toos ula xiriiri weysay deni madaxweynaha muxuu ahaa marar badan baan ku talagalay waana arrin abbaarigu ah arrintaas doorka aan leeyahay inaan ka qaato laakiin anigu waxaan is leeyahay dadaaliguma yara marka waa xaajo murugeedale weeye marka arrintaasi arrin xoogaa fogaatay weeye waana arrin abbaara waana arrin aan masaalixda qayb ka ahayn wey aansiiya asna markan wasiirka warfaafinta ee maamulka puntland maxamuud caydiid dirir waxaan la xiriirnay wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya wuxuu noo sheegay in albaabada aad xirateen oo madaxweynaha soomaaliya iyo wasaaradaha qaybo ka mid oo asagaba wasaaraddiisa ay ka mid tahay shakhsiyan asaga uu xiriir la sameeyey madaxweynaha puntland cid la hadasho ay waayeen dhinaca dowladda si ay markaasi gacan idinkugu fidiyaan maxaad uga jawaabaysaa arrintan cid la hadasho inay waayeen taagdarradooda iyo mas-uuliyad darradooda ayay muujinaysaa waayo dalka iyagaa kala diray dastuurkii iyaga aasoo maaragtay qashinka ku riday dalku inuu wada shaqayn waayo iyagaa ka shaqeeyey jubbaland bay hore ugu duuleen oo waxay ugu duuleen oo keliya inay ka aragti duwan yihiin iyo doorasho ay u diideen maamul goboleedyadii kale bay dhammaan ku yidhaahdeen mudaxileedkiinni hadduu dhammaaday annagaa idiin korrinayna oo maaragtay xilka annagaa idiin dhiibayna dastuuradiinnii iyo doorguddigiinnii doorashada iyo nidaamkii dawliga faraha ka qaada taasi waxay kutusaysaa inaanay dowladnimo doonayn hase ahaatee ma filayo inay macquul tahay taageerada qofka babliga ee soomaali bixiyo oo mikrofon intuu isa soo tagaa uu yidhaahdo waxaan taageersanahay dagaalka xaqa ah ee puntland ciidamadeedu iyo dowladdooda ay ku jiraan waan taageersanahay in la garab istaago waxaa laga filayay diyaarad raran oo daawo ah dad badani waxa ay isweydiinayaan maadaama daacish qaybo badan oo dunida ah si weyn looga ciribtiray awooddooda soomaaliya iyo inta ay sii jiri karto su-aashaasi waxa aan weydiiyey asna ambasadar axmed ciise cawad waxay horta sideedaba shabaab alqaacida iyo daacish waxay ka jiraan oo keliya meelaha dalalka uu burburku ka jiro oo dowladnimadu ay ka burburto oo aysan jirin uu jiro waxa la yidhahdo vacuum uu jiro firaaq ama meel maran oo ay maaragtay bahalgaleena oo ay geli karaan kuwaas saad og tahay daacish iyo alqaacida oo dad wareeray ah oo islaam magaciis ku wareeray kama jiraan dalal badan oo islaama kama jiraan daacish iyo shabaab kama jiraan maxaa la yidhahdaa malaysia iyo indonesia iyo turki iyo maxaa la yidhahdaa morocco iyo waxay ka jiraan soomaaliya libiya ciraaq syria libiya meelahaas waxay uga jiraan waxa waaye meelahaas
waxaa ka jirin dowladnimaan ka jirin dowladnimadii aa ka burburtay marka sidaasay Soomaaliya marka meelihii kale oo dhan waa laga soo ciribtiray Soomaaliya hadda ku dambeeyay marka firaaqaasay ka faa'iideysanayaan dowlad maqnaanshaha dowladnimo iyo maamul ayay ka faa'iideysanayaan Soomaaliyana hadda ugu nugul adduunka meelihii kale oo dhan waa soo kabanayaan Yemen kaliya xoogaa ku dambeeyaan al-Qaacida mustaqbalkoodu muxuu noqon doonaa mustaqbalkoodu wuxuu noqon doonaa horta waxaan wax natural maaha waa dad afka carabiga waxa lagu yiraahdaa qulaad waa dad ku wareeray diinta waxa ay haystaan diin maaha taariikhda islaamkana noocyadan oo kale waa soo jireen laakiin hadda ma maqlaysid iyadoo laga sheekaynayo footnote to history waaye marka waxay naturally way iska dhimanayaan guud ahaana barnaamijka bandhiga VOA-da ayaan toddobaadkan intaasi ku soo gabagabaynaynaa oo aan ku eegnay dagaalka ka dhanka ah Daacish ee ka socda buuraleyda deegaanka Calmiskaad ee Puntland iyo khilaafka dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedka Puntland sida uu saameyn ugu yeelan karo la dagaalanka ka adkaanshiyaha kooxda argagixisada ee Daacish barnaamijkan mid lamida inta aynu ku kulmi doonana waa Sahra Cabdi Axmed oo idin la sidaas iyo nabad gelyo